السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو هذا فيديو كلا iyo Kista TV magacaygu waa Maxamed Cumar. Haddii ay tahay markii ugu horeysay aan kulanno fadlan channelka subscribe si aad ula socoto videoyada kale gambalaalkana taabso waa kaaga mahadcelinaya. Inta kadib maanta waxaan rabaa videoga aan idin wado waa barnaamij kale oo ku saabsan teknolojiyada laakiin baryahanba waxaan daba soconay iPhone-ka iyo iOS 13 software-kiisa cusub iyo saad u update gareyn lahayd. marka maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago featureska aaladaha cusub uu soo kordhiyay iPhone-ka lagu soo kordhiyay iPhone-ka ama iOS 13 update-ki waa samaysatay marka update-ka samaysatay walba isu eg yihiin wax isbedela ma leh so maxaa isbedelay maxaa u baahan tahay inaad ogaato ama aad la socoto maxaa soo kordhay waxa soo kordhay maanta rabaa inaan kala hadlo number 2 waa idin kala 1 2 3 4 point-yada waa idin kala dhigaya waxyaabaha aaladaha soo kordhay si aad u raadsato telefoonka uga raadsato aalada koowaad oo ku soo kordhay iOS 13 uu soo kordhiyay waxa waaye in aad labo AirPod oo different ya two sets baalkan dhagaha la gashto AirPod Bluetooth laba xabo oo different ya hal iPhone ku xiri karto si taasna waxay ku sahlaysaa in iPhone-kaaga wax aad ila wadaagto anoo AirPod kala wato oo telefoon kala wata in aan isla dhageysano hal hees ama hal movie isla fiirsano anoo movie isla fiirsanayno ayaa nin walba AirPod-kiisu ka dhageysanaya codka inaan one video isla fiirsano so hal iPhone ayaa waxa ku xiri kartaa two different sets of AirPods so ugu xiraysaa marka hore waxaad tagaysaa Bluetooth-kaaga marka AirPod-ka hore ku xirto waxaad tagaysaa air share atagaysa and then kan kale oo kugu xirmaaya waa ku xiri kartaa marka laba set oo different ayaa waxa ku xiri kartaa hal iPhone taas waa one feature uu soo kordhiyay waa number 1 number 2 wuxuu soo kordhiyay dark mode oo all the apps oo maartay ka dhigi karto ama telefoonka oo dhan ba dark ka dhigi kartaa habeenkii markii la gaaro and you can set timers on it waxaad ka dhigi kartaa habeenkii saacad iyo saacadaas from 6 p.m. let's say to 6 a.m. ama waxaad dhigi kartaa automatic hadduu madow mugdi dareemo automatically isagaa iska dhigaayo off wuxuu iska dhigaa madow haddii qoraxda ay soo baxdana wuxuu iska dhigayaa caadi so dark mode oo automatic ay soo saareen oo all the apps dhan cover gareynayo waxay kaloo ay ku soo dareen oo cusbaa isagana in hotspot-kaaga la share gareyn karto more than one connector ama haddii computerkaaga ku isticmaalaysay hotspot-ka internetka telefoonka laga isticmaalo oo on uu ku ahaa carruurta u baahdaan tabletkooda inay ku isticmaalaan you can do a family share hadeer family share samayn kartaa oo maaragtay more than one device baa ku xiri kartaa hal computer ama hal tablet ka badan baa ku xiri kartaa taasna waa arrin hadda Apple uu isagana soo kordhiyay waxaad tagaysaa hotspot-kaaga marka hotspot-kaaga tagto on ka dhigto oo computerkaaga ku xirato ayaa haddana waxa u ogolaan kartaa family share on ka dhigaysa kaasa dadka dhan kugu soo xirmi karaan so taasna waa arrin la soo dhaweeyo hotspot-kaaga la share garanaysa dadka waxaa kaloo lagu soo kordhiyay you can hide your location from apps-ka kale oo location-kaaga waa ka qarin kartaa haddii aadan markaa isticmaalaynin waa ka qarinaysaa completely waxaa leedahay waxaad tegaysaa setting-ka tegaysaa waxaad tegaysaa location services privacy aad tegaysaa and then markaa privacy-ga tagto waxaad tegaysaa apps-kii oo list ku jira marka waxaa leedahay app-kan marka aan isticmaalayo keliya hay track gareeyo ama hayla socdo meesha aan maraayo iyo xaalkayga laakiin ka badan uma ogoli so you can hide location-kaaga hadda ma samayn kartid laakiin marka iOS 13 ka dhigato waa samayn kartaa waa alaabaha ay ku soo kordhiyeen taas midda kale waxa ay samayn kartaa oo kale share your ETA haddii aad isticmaalayso Apple map-kooda qofka destination waxaad gelinaysaa destination-kaaga markuu kuu sheego waqtiga aad tegayso waa hold garaynaysaa waxaad leedahay share ETA ama estimated time of arrival waqtiga aan tagayo share baad leedahay kadib waxaa u diraysaa
qof ala contact ku soo saarayo qof ala qofka rabta u diraysa haddii qofkan uu Samsung ama Android ama Google phone ama wax kale uu isticmaalayo waxay u diraysaa kaliya text message ay leedahay hebel wuxuu imaanayaa 8 PM oo kale laakiin haddii qofka iPhone isticmaalayo detailed information uu bixinayo uu siinaya meesha aad soo marayso xilliga aad imaanayso waqtiga isaga meesha aad marayso wuu ku arki karaa qofka taasna waa mid uu soo kordhiyey waxaa kaloo uu soo kordhiyey oo aad muhiim u ah battery optimizer charging optimizer bateriga markaad charge garanayso in baterigaaga uu si dhaqso ugu dhamaanin ma aha maalinkaas waxaan ka hadlaynaa lifetime-ka ama nolosha bateriga ama telefoonkaaga bateriyada waa artay way sii yaraadaan maalinba marka sanad uu joogo chargekiisa sidii hore uma hold garaynayo oo dhaqso kaa dhamaanaya marka waxaa laga hadlayaa lifetime-ka bateriga maadaama lithium battery wax la dhaho la isticmaalo bateriyada lithium ay yihiin oo charge ay ku shaqeeyaan overtime waqti markuu sanad la joogo bilo marka la joogo wuu sii dhamaadaa so haddii battery optimizerka on ka dhigto chargerka kaama dilaayo bateriga hadduu buuxsamo wuu saas ka jaraya automatically si automatic isaga jaraya marka battery optimizer bay ku soo kordhiyeen aaladaasna aad iyo aad bay insha Allah u fiican tahay waxaa kale oo hadda ay ku soo kordhiyeen meeshii emojiga la isu diri jiray memoji waxa la dhahay soo saareen memojiga waxa waaye waa adig isu ekaysiinaysa memoji waa adaa isu ekaysiinayo emojiga so intaas ay ku soo kordhiyeen iOS 13 qofka iPad watana insha Allah taala isagana waxyaabo kale ku soo kordhiyeen iPad OS baa la dhahaa 13 laakiin kan waa iPhone-ka intaas aan idinku daynayaa fadlan channelka subscribe do not forget maartay inaad la share garayso asxaabta si ay ayagana update-ka u samaystaan markay update-ka samaystaan ay ula socdaan waxyaabahan aaladahan cusub oo soo kordhay